قصة النبي أيوب عليه السلام ومد كميد نبيد الله صدري وحن نبي كان أسبي امتحان أدوين مركز طلب قارنا وحاكي سمرا الله يسمر وعنكم تقي نبي أيوب عليه السلام وحو نبي أيوب عليه السلام كابتر صدا نبي إبراهيم عليه السلام وحنا قصيص كسر روتي القرآن كا وحنا لو شيء لبا شر حتى أنا خلدنين نبي أيوب عليه السلام وحو قال لي مال بدن يا عرور بدن يوح كسته إنه لا شكر ربي هذا مال كافر بدن لحو كدم بيجي حنو كاسمنا أنت أيوه هي وحاصل أنا حكوا شرح دونا ما قال كنا ما أنت ومد كميد نبيد الله صدري ولا نبي أيوب عليه السلام سيد علماء التاريخ ينادوا شيغان نبي أيوب عليه السلام وحوها نبي الله نعم بدن سي هي مال بدن مال كيس فرع بدن الله كم كفرنا وكو شكرنا قشي مساكين تنا وكو عاون شري سدو كلا أقونتا أيوب كافين شري سيد الله تعالى أيوب مال كيسا وبحيي حاسكيسنا واحد بدالنا سي نمعداس سدو كلا حاسكيس واحد مid ku shukr naqda nimcada oo alla siiyay ninkeeda haddii islaadii balaayadii dhibtu waxay doonato qofka xun oo ma doonato qofka wacan waxa tusaale kugu filan nabi ayub calayhi salaam nabi ayub waa la jeclaa waa alla soo diray oo ciise iyo karaamo siiyay ay musbadaas ku dhacday mid kala cafis loo galaya nabi ayub calayhi salaam waxa bilowmatay imtixaankii dhamaan qoyskiisii way ka dhinteen nabi ayub calayhi salaam waxa quraatay soo hadhay xaaskiisii nabi ayub calayhi salaam waxa siibtay cudurro aad u badan waxa kaliya badbaaday carabkiisii iyo qalbigiisii labadaas waa la ku bari jiray markaste nabi ayub calayhi salaam waxa ku dheeraday xanuunkii ilaa dadku takooraan oo ay ka yaacaan laakiin xaaskiisii ayaa wali la joogtaa xaaskiisii dhex badaalinaysa maalka faraha badan leh hada guriyaha ayuu soo masaxdaraa si ay uga hesho in yar oo lacag ah nabi ayub markaste uu xanuunkiisii bato waxa sii badanayay islamarkiisa waxa xanuunkaas hayna muddo 17 sano ah markaas mid u dhowya iyo mid ka fogba nacay laba nin ayaa subaxii ku soo kaleey jiray casarkiina ku soo caraabi jiray oo soo mari jiray kadib labada nin ayaa maalmaha kamid ah uga socda ayuu mid kamid ah dhahay ayub khalid weyn ayuu galay markaas ayuu kii kala ku dhahay oo maxaa taas u leeday markaas uu ku jawaabay xanuunkaas uu xayay muddo 17 sano allana kama qaadin kadib labada nin markii ku soo caraabay nabi ayub calayhi salaam ayuu kii kala u sheegay wax uu lahaa ninkii kale maalin ayaa nabi ayub alla subxaanahu wa ta'aala u soo waxyooday waxaana ku dhahay lugtaada ku dhuf dhulka markaas ayuu nabi ayub calayhi salaam ku dhuftay lugtii waxaana soo burqaday biyo aad u badan markaas ayuu nabi ayub calayhi salaam biyo ku meedhay oo cabay kadib xaaskiisii ayaa soo laabatay kadib waxa aragtay nabi ayub oo sidii uu markii hore ahaa waxaana moodaysaa sidaan qof aan wali waxba ku dhicin laakiin xaaskiisii markaa ma ay moodan inuu yahay nabi ayub waxa moodaysaa nin kale kadib waxa ku jiray wala waxaad u egtahay ayub oo halkaas soo taagan ee ma aragtay ninkeygii kadib ayuu ku dhahay waa anigii alla subxaanahu wa ta'aala nabi ayub maalkiisii dib ayuu ugu soo celiyay iyo caafimaadkiisii waxaana noqdeen sidii markii hore ahaa سيد النبي أيوب عليه السلام هل كان سيكون أكتين تكون من قصة لم يدوح نجتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي من القصص التي دلت على الله الجليل قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل تالله ليس لها مثيل وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل